bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka risaale saaka idiin diyaarisay waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo baxaysa koox toorey ku hubeysneyd oo gaalkacyo dil ugu geysatay gabadh dhalinyaro ahayd ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xalay guddoomiyey kulan looga hadlayay ammaanka muqdisho madaxweyne farmaajo oo ka hadlay walaaca shacabka qaar ay ka qabaan dhulka soomaaliyeed in la qaato hay-adda nabad sugidda oo sheegtay howlgal laga sameeyey degmada yaaqshiid lagu qabtay sarkaal ka tirsan al-shabaab diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga oo si weyn uga socda suuqyada muqdisho iyo jarmalka iyo faransiiska oo diiradda saaraya doorashada qofka hogaamin doona guddiga midooda yurub warar dheeraada ayaa ka soo baxaya koox toorey ku hubeysneyd oo xalay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug oo ku dilay gabar dhalinyaro ahayd gabadhan ayaa waxaa la sheegay in rag ku hubeysan toorey ay ku weerareen xaafadda garsoor ee waqooyiga magaalada gaalkacyo kooxda ayaa la sheegay in gabadha oo ka soo baxday salaadii taraawiixda xalay waxa ay toorey ka geliyeen dhuunta waxaana gabadha oo lagu magacaabi jiray nimco cumar shire xuurey ay u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi bahalnimada ahaa ee ay ku qaadeen ragga tooreyda ku hubeysnaa goobjoogayaal waxa ay sheegeen in raggii ka dambeeyey falkaasi ay goobta ka baxsadeen dilka kadib waxaana tegay markii hore waxaana goobta looga qaaday dhaawac ahaan iyadoo ku geeriyootay gabadha ugu dambeyn cisbitaalka magaalada gaalkacyo ilaa iyo hadda ma jirto cid si gaar ah u sheegatay mas-uuliyadda dilka gabadha yar iyo sababta loo dilay hayeeshee haweenka kale ee habeenkii aadi jiray salaada taraawiixda magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay sheegeen in walaac iyo cabsi ay soo food saartay taasoo ay ku tilmaameen inaanay hadda ku dhiiran karin u bixista bannaanka maadaama la beegsanayo haweenka taraawiixda kusoo dukada masaajidada magaalada gaalkacyo falkan ka dhacay magaalada gaalkacyo oo si weyn shacabka ay uga argagaxeen ayaa noqonaya fal kale oo tacadi ah oo haweenka ku nool gobolka mudug gaar ahaan waqooyiga magaalada gaalkacyo loo geysto kadib markii sida la wada xusuusto magaaladaasi lagu dilay gabar yar oo lagu magacaabi jiray caaisho ilyaas aadan taasoo inta la dilay kadibna la kufsaday kadibna la dilay arrintan ayaa waxgaradka iyo maamulka magaalada gaalkacyo gobolka mudug waxa ay sheegeen in aanan loo dulqaadan karin islamarkaana mas-uuliyiinta cusub ee gobolka mudug looga baahan yahay in jawaabo deg deg ah ay ka bixiyaan tacadiyada dumarka loogu geysanayo waqooyiga magaalada gaalkacyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa xalay guddoomiyey kulan looga hadlayay ammaanka muqdisho cabdiqaadir jakaarta ayaa ka waramaya kulankan oo xalay lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxaa looga hadlayay dhanka sugidda amniga caasimadda soomaaliya ee magaalada muqdisho halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen falal la xiriira amniga waxaana shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre kulanka ayaa waxaa ka qayb galay xubno ay ka mid ahaayeen wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya maxamed abuukar islaaw ducali guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer yariisow taliyayaasha ciidamada iyo khubaro amni waxaana diiradda lagu saaray dardargelinta iyo kamiro dhalinta qorshaha sugidda amniga dalka gaar ahaan amniga caasimadda hay-ada amniga ayuu ra-iisul wasaaraha soomaaliya kula dardaarmay inay laba jibaanaan dadaalada ay ugu jiraan xasilinta caasimadda si ummadda soomaaliyeed ay ku helaan nabad buuxda kuwaas oo ku sugan magaalada caasimadda ee muqdisho kulanka marka uu soo gaboobay kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay islamarkaana faahfaahin ka siiyey afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar xasan saalax dheere shirkan runtii wuxuu ahaa mid ay ka soo wada qayb galeen dhammaan qeybaha kala gedisan ee laamaha ammaanka oo ay ugu horreeyeen wasaaradda amniga taliska ciidanka booliska ee gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir uu hogaaminayay duqa magaalada muqdisho iyo madax ka socotay xafiiska ra-iisul wasaarahana runtii shirkan wuxuu u shir guddoominayay sidii loo dardargelin lahaa amniga caasimaddan magaalada muqdisho iyadoo aanu ognahay maalmihii u dambeeyey in ay socotay barnaamij laisla dhexgelinayay shacabka iyo qeybaha kala gedisan laamaha amniga iyadoona nambarka 991
uu ra'iisul wasaaraha muddooyinka ugu dambeeyeyba xoogga saarayay sidii ay shacabku ula soo xiriiri lahaayeen qaybaha amniga isla markaana ugu wargelin lahaayeen wax walba ay u arkaan in uu amni darro ku yahay magaaladan caasimadda ee muqdisho iyadoona qaybaha kala gedisan ee amniga ay u suura gashay in falal fara badan oo amniga liddi ku ah ay ka hortagaan iyagoo shacabka kaashanaya runtii shirkan wuxuu ahaa mid lagu sii dardargelinayay qaybahaasi kala gedisan ra'iisul wasaarahana uu u gol lahaa sidii ilaamaha amniga maamulka gobolka banaadir iyo shacabkaba ay wada shaqeyn dhab ah. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa hore u sheegtay inay ka go'an tahay sugidda amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Hayeeshee waxaa saacadihii lasoo dhaafmay ama 24 saac lasoo dhaafay magaalada caasimadda ee Muqdisho ka dhacay qaraxyo iyo dilal qorsheysan inuu dilalkii ugu dambeysay loo geystay xubno ka mid ahaa ergadii soo xulay xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya. Haddana howlgallo iyo baaritaano kala duwan ay ka socdaan wadooyinka iyo xaafadaha qaar ee magaalada caasimadda ee Muqdisho balse weli dilalka iyo qaraxyada ay sii socdaan. hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegtay howlgal laga sameeyay degmada Yaaqshid in lagu qabtay sarkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab. Maxamed Cabdi Cali ayaa sii dhameystiraya. war ka soo baxay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa waxaa lagu shaaciyay in ciidamada ammaanka howlgal ay ka sameeyeen xaafado ka mid ah degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir lagu soo qabtay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. qoraal lagu daabacay barta Twitter-ka ee hay-adda NISA ayaa lagu sheegay in howlgalka uu ahaa mid qorsheysan lagu soo qabtay xubin sare oo ka tirsan Al-Shabaab balse aan la shaacin waxa uu qaabilsanaa ururka Shabaab. howlgalka ciidamada amniga ay ka fuliyeen degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir ayaa lagu soo qabtay dhagar qaba ka tirsan Al-Shabaab. ciidanka amniga ayaa laba jibaaray howlgallada ka dhanka ah xubnaha argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo ISIS. sidaasi ayaa lagu yiri qoraalka lagu daabacay bogga NISA ay ku leedahay Twitter-ka. NISA ma shaacin magaca shakhsiga ay sheegeen in ay soo qabteen, sidoo kalena ma baahin sawirkiisa, hase yeeshee waxa ay ku soo aadayaan xilli hay-adda NISA sanadihii lasoo dhaafay howlgallo ay ka fulinayeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe iyo Banaadir ay ku sheegayeen inay ku soo qabteen xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish kuwaas oo siyaabooyin kala duwan uga howlgalayay saddexdaasi gobol. waxaana NISA ay inta badan tilmaamtaa in saraakiishaasi iyo dagaalyahanadooda gacanta lagu soo dhigo kuwaas oo mararka qaar ay NISA soo raaciso sawirada iyo magacyada halka kuwa kale ay sheegto in howlgal lagu soo qabtay intaasna warbixintooda looga haro. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay walaaca shacabka qaar ay ka qabaan in dhulka Soomaaliyeed la qaato kadib markii bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya lagu soo bandhigay qariirad muujinaysa in dalka Soomaaliya aanu jirin isla markaana uu ka mid yahay Itoobiya, sidoo kalena Somaliland loo aqoonsaday dal madax bannaan. qariiradaasi oo dhalisay muran isla markaana wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay sheegtay in si qaldan uu boggeeda ay u soo galiyeen kooxda teknolojiyadda ama farsamada qaabilsan ee boggaasi ka shaqeeya. ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii uu ku sugnaa dalka South Africa xilli uu la hadlayay jaaliyadda Soomaaliyeed waxa uu soo hadal qaaday inay jiraan dadka qaar oo Soomaali ah oo walaac ka qaba in dhulkooda la qaato, balse madaxweyne Farmaajo waxa uu shacabka ugu laab qaboojiyay inta qof Soomaali ah uu nool yahay oo uu soo taagan yahay inaysan jiri karin sabab dhul Soomaaliyeed loo qaato. isla markaana waxa uu shacabka ugu baaqay in ay iska ilaawaan walaaca ku aadan in dhul Soomaali ay leedahay la qaato. waa dhab ummad markay muddo dheer ay ku jirto dagaal sokeeye qabka hoos u dhaca oo dadku kalsoonida ka lunta. mar waxa maqlaysaa dalkeena waa la qaadanaya, dawladda Hiblaya qaadanaysa. war adiga hadaa noo sheegay dalkaaga loo qaadanaya adaa noole. adigu hadaa isdhiibto ama aad dhimato waa sax, waa la qaadan dalkaaga, dalka dal fiican weeye. laakiin hadaa soo taagan tahay Soomaali waxeeda qofkii u yimaada isaga u dhimanaya. markaas dhiibina qabkiina kor u qaada, kalsooni lahaada. qof Soomaali meel ku nool yahay dalkiis lama qaadan. waa jiraan dad Soomaali ah oo la adeegsado, waa jiraan oo shay adeegsado, waa jiraan. dadkaas hal meel aan uga soo wareejisano, waliba waa jiri jireen, wax cusub maaha. hal meel aan uga soo wareejisano
dalkeenna dal kale ma lihin isagaan leenahay isagaan ku dhalanay isagaana ku dhimanaynaa qof walba waqtigiisa dhaafayana ma jiro marka niyadda khayr u sheega cid maliqi karta ma laha dacar soomaali waa dacar wey waa la isku dayey meeqasana la isku dayaayo dadkii naga horreeya oo waxba garanaynin oo dadkooda fiicnaa bannaanka laga maray oo waddamadii annaga afrika ugu horreeya xorriyadda qaataanna soomaali laguma soo dhaco dabkiina kor u qaada kalsooniga kor u qaada haddii ay jiri jireen madax aad shaki ka qabtaan walaalay shaki hanaga qabina annagaa idinka hor dhimanayna annagaa diyaar u ah inaanu ka hor dhimanno laakiin hanaga harina hanooga bixina dagaalka hadalka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ku soo aadayaa iyadoo qariiradii lagu soo bandhigay bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ethoobiya hadalhaynta shacabka ay ku tilmaamayeen inay tahay qorshaha fog ee dowladda etoobiya ay ka damacsan tahay dhulka soomaaliyeed balse arrintu ay noqotay sir fakatay maadaama etoobiya oo xilligan aanan lahayn xitaa dhulbadeed ay tababaratay ciidanka badda ee ethoobiya oo dadku ay isweydiinayaan halka ay ka howlgeli doonaan maadaama ethoobiya aanay lahayn bad sidoo kalena qorshahan ayaa loo arkaa inuu yahay mid dowladda etoobiya ay ku doonayso fogaanshaheeda aragtida ah ee dhulka soomaaliyeed maadaama haddaba dhulka qaar ay si awood ah ku haysato ayna hoos tagaan maamullo iyadoo ay u arrimiyaan oo dowlad deegaano ah diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga ayaa si weyn uga socda suuqyada magaalada muqdisho cali xasan oo suuqyadaasi tegay ayaa warbixintan ka diyaariyey carwo alkowsar waxay ka mid tahay carwooyinka magaalada muqdisho kuwooda ugu caansan oo ay ka adeegtaan dadka ku nool caasimada intooda badan waxaana xilligan oo ay fooda nagu soo hayso ciidulfidriga ay tahay mid aada u mashquul badan maadaama dadka intooda badan ay ka adeeganayaan waxaa lagu iibiyaa carwada dharka noocyadiisa kala gedisan kuwa caruurta iyo dadka waaweyn waxaana si ka duwan maalmaha kale u buuxdhaafay dad doonaya in carwada ay ka iibsadaan dhar ay ku ciidaan mid ka mid a shaqaalaha carwo alkowsar oo la hadlay idaacadda risaale ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in macaamiisha carwada imaanaya ay aada u fara badan yihiin ayna ka shaqaynayaan sidii ay u qanci lahaayeen idaacadda risaale aada iyo aad ay u mahadsan tahay oo ku faraxsannahay maanta annagoo xarunteena joogno inay nagu soo booqtaan maasha allah alxamdulilah aada iyo aad ay u adeegtaan kastamarada macaamiisha aada iyo aad ay u fara badan yihiin annagana dee saa og tahayba dee waan uga talagalnay in kastamaro badan ay meeshan si fiican ay u adeegtaan aada iyo aadaanan ugu faraxsannahay kastamarka maasha allah ayaguna ay qanacsan yihiinoo dhar raqiisa oo qualitilen waa u keennay ciidana maasha allah aada iyo aadaan u dareemaynaa maasha allah ciiddii hadda tii hore waa iyo tan kullamaa ciidda ugu dambayso ayaan uga kastamar badannahay qualitiga dharkana ciid kasta uu isbedelayaa marka maasha allah waa ilaahay xamdigiisa waay waxa uu sheegayaa in dadka loo adeegayo ee imaanaya carwada ay aada ugu badan yihiin caruurta waxa uuna intaa ku daray in carwada ay shaqaynayso maalintii oo idil ilaa habeenkii saqda dhexe oo ay dadka ka adeegtaan haddee waa ogtihiina bishii ilmaha waaye inta badan sida dadka waaweyn wax u gadan jireen ma aha hadda ilmaha inta badan hadda loo adeegayo ilmaha maasha allah ilmaha hadda inta badan oo 80% ilmaha adeegto 20 ka soo harayna waa dadweynaha wallaahi dinadan dhihi karaa laakiin ilaa iyo 7 saac waan gaarnaa ugu dambeyn haddaan wax ku darin intuu customer socdaba anaga waa shaqaynaa waxaan diyaar u nahay customerka kullama baahidiisa inaan markasta aan daboolno oo customer iyadoo socdo inaan xirno marna ma jecelin 7 saac 8 saac aan ku gaarnaa shaqada waa maasha allah waqtiyada hore ilaa iyo 5 saac inta badan ilmaha socdo ilmaha de waa ogtahay 5 saac mar haday gaaraan hurdadii ay qabanayso oo inkastoo ay faraxsan yihiin oo mara alkowthar in hadii la yiraahdo aad u farxayaan 5 saac kadib wixii ka dambeeyo hoogaa hurdadii ay imaanayso wixii 5 saac ka dambeeyana dadweynaha u adeegnaa oo sida maamooyinka iyo ragga iyo intaba
waa ayagaan u adeegnaayo de macuusihii iyo shaararkii dadka waaweynaa ayaan keennay oo qualitigooda aad iyo aad u sareeyo marka ayagaan u adeegnaayo 5 saac wixii ka dambeeyo wixii ka horeeyana ilmaha adeegto inta badan all in one waayo rag iyo dumar ma kala lahan qof walba oo meeshan soo gal waa loo adeega insha Allah. Hani Maxamed Cali waxay ka mid tahay dadka ka adeegta carwo Alkowsar waxayna sheegaysaa in carwadan agabka lagu iibiyo ay qancisay sidaasna ay ugu adeegato waxayna intaa ku dareysaa in ay ka adeeganayaan iyada iyo caruurteeda. Hani Maxamed Cali wallahi carwada dhar ciidan ka iibsanaaye ma sha Allah carwo aad iyo qanacso waaye dharka ciidan ilmaha kala arag caruurta waxa jeclaa ciidan inay si qurux badan u ciidaan carwooyinka kale yani xogaana waa ka qiimo jaban tahay dharkana way ka qurux badan tahay way ka sidataa caruurteeda wallahi adiga laba gabdhood oo iibinaaye ma sha Allah inay si fiican u ciidayaan inay la tahay insha Allah. marka hore waxa lagu siinayaa saado soo celiso wana aqaadanaysa ma sha Allah carwooyinka kale waxa jiraan hadda carwooyin badan aan markay يعني ay ka duwan tahay because dhar marka ka iibsato kala caruurta marka kaaga yaraata laga bedeleenin ayaga laakiin garsiyo ku siinaya oo laga bedelaaya ma sha Allah aadan uga helay. Deeq Baraxirsi waxa uu ka mid ahaa dadka ka adeeganaya carwada waxa uu ii sheegay in carwadan uu ka adeegto uga yimid mid ka mid ah gobolada dalka waxa uu tilmaamay inay ka raqiisan tahay qiimaha dharka lagu iibiyo carwooyin kale. magacayga waxa la yiraahdaa Deeq Baraxirsi maanta waxaan u sugaynaa beeshan inaan ka adeegano marka sida way walaal waxaan ka iibsanaynaa dhar aan u soo doonno inaan ku iibno sida surwaalada shaatiyaasha garamada kabaha oo kale. adiga ma iibsanaya masaacado caruurna u iibsanaynaa anakana way iibsanaynaa carwo Alkowsar maadaama maxay ugu duwan tahay carwooyin kale magaalada ku no dharkeedan u bognay waana meel aad u sharaxan oo raqiis ah oo bulshada soo jiidata hadda dharan qaaday waxa kamid ah inaan u wado gobolada kale hadii wixii yiraahdeen way soo celinaysaa waan ku soo dhaweynaa marka waa carwo fiican oo dad fiican ay leeyihiin gobolana waliba wada. warbixintaasi ku saabsaneed diyaar garowga munaasabada ciida iyo habka dadku ay uga dukaamaysanayaan carwo Alkowsar ayaa ugu dambeysay